garoonka diyaaradaha degmada Bulaburde oo shalay iyo maanta ay ka socdeen ololo lagu balaarinayo garoonka sidoo kaleetana caratuur loogu sameeyay meelaha godadka oo ay ka cabanayeen diyaaradaha ka soo dega garoonka degmada Bulaburde. Maamulka degmada Bulaburde maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada, taliyaha saldhigga booliska degmada iyo bulshada ku dhaqan degmada oo iskaashanayo ayaa bilaabay dayactirka garoonka diyaaradaha degmada maadaama isha kaliya ay u furan ay tahay degmada Bulaburde garoonka. Maalmahan dambe waxay shaqo isxilqaan ah oo ay horkacayaan maamulka degmada Bulaburde ay nooga socotay airportka degmada Bulaburde oo maalmihii dambe waxa way ka soo laabteen cilada ay ka sheegteen diyaaradii soo dagaayay shacabkii degmada Bulaburde iyo mas'uuliyiintii dhamaanba looma kala harin in airportkii shaqo laga qabto. Airportka waa la carab buuxiyay runway waxa way intii diyaaradu ay codsadeen waa lagu daray waxa way saraakiishii amniga iyo maamulkii shacabka anagoo aba airportkii joognaa. Taliyaha saldhigga degmada Bulaburde Cabdi Maxamed Cali Cabdi Ilbuur ayaa ugu baaqay bulshada reer Bulaburde inay isku tashtaan ay gacmahooda ay ku dhistaan garoonka. Airportka shaqadii ugu ballaarneed laga qabto airportka Bulaburde markii aan fiirino hawsha la qabtay shalay iyo maanta reer Bulaburde day isku tashtaan wax kasta qabsan karaan. maanta waxaan ahayn aan u imid bal wixii shalay la qabtay iyo wax maanta la qabtay inaan daraaseen ku sameeyno markaan fiirino waxaan dhihi karnaa reer Bulaburde wax way qabsan karaan hadday isku dayaan inay qabtaan wax walba qabsan karaan. Maamulka degmada Bulaburde oo dhawaanba la soo magacaabay ayaa shaqadoodii koowaadba ka bilaabay inay habeeyaan garoonka degmada oo ay cabasho badanba ay ka timid ayagoona sheegay in ay joogteen doonaan ka shaqeynta garoonka diyaaradaha degmada. waxaan sameeynay geeda gur waxaan sameeynay carro ilaa 30 kaarka oo carrahan ku shubnay qaarkoodna hadda waa noo dhiman yihiin. waad aragtaan hadda garoonka waan arki doontaan insha Allah taala nidaam fiican ku socda garoonka sidiisaba waa gacan ku hayn juhdi badan aan ku sameey anigoo maareeyaha garoonka maamulka iyo hadda la guuron yahay dhalinyartaba waa la tashtay waxa soo baxday in garoonka laga shaqeeyo insha Allah taala. airportkan awalba isoo geedo quraaci ku yaaliino oo intaan ka wada weynaan wax ka qabsanay maanta u baahan yahay gacmo yar iyo isqabsasho u baahan tahay inaan maalin walba qolo lagu haleeyo oo lagu xisaabtamo shakhsiga dhisi doono kana yeel doono nimayahow Soomaaliya cid quraan shaarta bulac wajida garoonkeena inaan u tawaashiisano aan xoog wada saarno min ganacsatada min maamul min dhalinyaro min culamaa diin wallahi oo billaah wata la isku tagno garoonkan waxa aaminsanahay taa raaywigiisina shamiita ka dhigi karno. runtii waxaan rabnaa inaan joogteeno si airportka sababtoo waa gacan ku hayn inaan joogteeno shaqooyinkii aan ka qabanaynay airportka. waxaa rabaa inaan baaq u diro dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka ugu horeeyaan inay degmada Bulaburde waxyaabaha danta guud ee dadka in loogu shaqeeyo loo baahan yahay inay gacan weyn ka geystaan. sidoo kale waxaan baaq u dirayaa dadka degmada Bulaburde dadka gudaha iyo dibadda ku nool inay naftooda iyo maalkooda ku bixiyaan sidii degmadanu ay muuqeeda iyo muuqaalkeeda quruxda badan u soo laabto. annagana ka maamul ahaan waxaan ka shaqeyn doonaa horumarka degmada iyo waxyaabaha bilic soo celinta degmada haddii Ilaahay yiraaho. Askari Ali Raage warbaahinta qaranka degmada Bulaburde.